salaadii subax markaan anigu hadda saacadaanan haysanin laakiin qiyaaska markaan isleehay salaadii subax 30 daqiiqo iyo wax ka yar baa ka hadhay ayuu macalinkii anagoo de meeshii gurigii iyo degaankii meeshii ka koreysay oo dabku noo shidan yahay oo quraankii markaa wada qoranay ayuu macalinkii dhinaca dhulka dhigay kadibna macalinkii ma kicin salaadii subax baa la gaaray macalinkii ma toosin waxaa la gaaray waqtigii ardadu ay qureecda doonanaysay macalinkii ma toosin guryihii markaanu ku wada noqonay oo de macalinkii awey la yidhi oo qureec iyo wax lamida laga wada hadlay ayaa la weli macalinkii qoraxdiibuu jiifaa kadibna waa lasoo kala orday oo aabahay baa kamid ahaa allaha u naxariistay dadkii soo orday guriga anagaa la dhigay macalin weli taqriiban wax meyd u eg buu ahaa ilaa maqribkii kale laga gaaro si kasta ayaa wixii dhakhtar la heli karay iyo wixii mudaawaad la heli karay oo dhan oo reer baadiyu isticmaalayeen markii laga quustay ayaan aabahay u imaaday waxaan ku idhi aaba runta ma kuu sheega ahaa macalinka anigaa habaaray بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت بدن وسود دواده أدونك ملك استود كجوكتان الله ينبركيه وبرامج شديني أن نقول تقانين وشكل شيقة وسؤالها سفيرك on alaaba aan ku martiqaadno culimada Soomaaliyeed midii inoo suura gasho aan ku soo qabanno maantay waxa farxad iyo karaamo iyo sharaf inoo ah inuu walaalkeen sheeqeena Sheekh Abu Dalha inuu qadka inoogu jiro waraysi toosa oo farxad leh ayaan ka qaadeynaa biidni Raxmaan Sheekh Abu Dalha soo dhaw marka hore ما شاء الله بسم الله وبعد آدي آد بانو دوهي سفير الإسلام وأنا كفر أحسنها هاي كلن كان أما اللقاء أما أنت وذاقي إنه إنه كلفوق اللهنا وحان ويديسنا يا مد بركة إنه كردقو وأنا إذين مهد علينا يا وأنا دوه الله كبرك يا شيخ أنا برامج كان وبرامج كشكاء وأسكفرني علماء يشكلوا إذا كبرنا بين الرحمن ومعناها سؤالها سفير كالإرادة marka su'aashan ku weydiino sida jeceshana uga jawaabaysaa hadii ku dhigtana waa ka gudbaysaa dhimar saad doontaad uga jawaabaysaa bin raxma wax qasaba ma lahan ahlan wa sahlan wa marhaban allah ku barakeeyo waxaan rabnaa inaan barano marka hore Sheekh Abu Dalha waa kuma magaciisa saddexan qoysaskiisa barasho wanaagsan soo dhaw ustaadi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد وولالكين محمود شيخ حسن شيخ آدم شيخ إبراهيم يرانتي سنة لو يقاني محمود عداني إمن كذا هذا عذن الله الله ينا أدوم كاللو يقانو أبو طلحة كن سقال بقول لحدا ليتضبدي inaan dhashay baa la ii sheegay bil la iima sheegin laakiin sanadka ayaa la ii sheegay magaalada aan ku dhashay magaceeda Goday baa la yiraahdaa waa magaalo aad caan u ah ma ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay guumaysato allaha ka qaade ay mar caasimada ay u ahayd haddana caasimada labaad ay u tahay caasimada koowaad waa Jigjiga caasimada labaadna waa Goday magaalada Goday baan ku dhashay waxaan ka dhashay caa'ilo diini ah sidaad arkayseen hadda Sheekh Xasan Sheekh Aadam Sheekh Ibrahim sida oo kale dhanka hooyo Allah u naxariisto labaduba way iga hooseeyaan caawa waxaa la dhihi jiray Faadumo Xaaji Cumar Jire Faadumo Macaan ayaa lagu magacaabi jiray ayadana أسرة دينية وهذا بتشوجا أبتيالكي علماء مشايخ وآل ذو يقانا أي إلهي سبحانه وتعالى تاسي فخر يفان معهانه ومعلومات كؤون وإلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يران تيدي شن سنة مركي أن قريبة dugsi qur'aana ayaa la igeliyay macalinkayga macalin wali ayaa la dhihi jiray rahimahullahu tabaaraka wa tacaala qur'aanka ila suuratu Yuusuf
ayaan dhihi karaa ayuu macalinka ii dhigay. kadibna aniga oo weliba yar ayaa biqudrati illaahi jala jalaaluhu habeen walba muddo 3 sano ah waxaa ii imaanayay nin aada u cad oo dhar cadcad qaba. hal su-aal buuna i weydiinayo wuxuu dhahayay, ma waxaad doonaysaa noloshaada inaad baadiye ku dhamaysato? marka magaalada goday korkeedaan markaa degannahay waan la yaabi jiray oo su-aal baan weydiin jiray oo waxaan dhihi jiray oo xaggeen aadaa? wuxuu dhihi jiray waxaad aadaa xamar. anna dee ilmo yarna waanahay, xamarna ma aqaano. kadibna qofkii waa iska tegi jiray. muddo 3 sano ah ayay ru'yadaa igu soo noqnoqonaysay ilaa markii dambe aan u adkeysan waayey oon waalidkay aan la wadaagay. bifadli illaahi tabaaraka jala jalaaluhu markaasi fatro kadibna waa la isoo fasaxay keligay anigoo ah nin yar ah baa la isoo fasaxay oo kitaab qur-aana wata. intii dhowr neef oo ari a la iisoo gaday. kadibna waxaan soo aaday meeshii la igu yidhi aad. weliba waxaa laigu dhihi jiray baadiye khayr kuguma jiro, waa inaad ka tagtaa. xamartii baan imaaday bifadli illaahi. waa qiso aada u dheeroon hadda aanan ka sheekayn doonin. macalinkayga macalin cumar ama macalin goday ama macalin tuulo, labaduba intaa 3daa magac baa la dhihi jiray. goday waxaa loogu bixiyey macalin goday markii 77dii goday la qabsaday. abti baanu u ahayn, isagoo macalin biyamaala waa nool yahay xafidahu llah. kolba dadkii ardada aan isla ahayn kiliibkan hadday dhegeystaan si fiican bay u garanayaan. kadibna waa dugsigii buu fasaxay. waxaa la yidhi dugsiga maxaad u fasaxday? qof jus ma dhammaynin oo cambuulo lama cunin. wuxuu yihi maanta goday ayaa la qabsaday. xaafadihii sidaasay maxaa la yidhahdaa macalin goday ugu bixiyeen. macalin tuulona waa la dhihi jiray oo madiino, xaafadda madiino xamar, xaafadda madiina macmacaanka tuulay ahayd waqtigaas 77dii. marka macalin tuule ayaa loo bixiyey. macalin cumarna de aabihii ayaa markaa cumar la dhihi jiray. taariikhdayda oo kooban intaas ayay ahayd oo dhinaca ku saabsan. wixii intaa ka dambeeya qur-aankii iyo cilmi barashadii unbaa bilaabatay ilaa ay dagaaladii ay markaa soomaaliya ay ka dhaceen. kadibna dadkii dibadahaasi ilaa kenya ilaa suuriya ilaa dibadaha dadkii uun tegay ayaan ahaa. haddadan aan kula hadlayana safiirulislaam waxaan kaala hadlayaa caasimada dalka turkiga ankara. waan ka baxay. allah ku barakeeyo ustaadi, waad mahadsan tahay. haddaad noo sheegtid marka haddii suuragal tahay qoysaskaaga. waxaan u malay inaad igu tidhi su-aalaha waad ka gaabsan kartaa wixii aad rabto. marka alxamdu lilah, ilaahay awlaad waa igu arsuqay. 8 caruura baa hadda joogta alxamdu lilah iyo xaas. allah ku barakeeyo, jasaaka allahu khayran. waan ku faraxsannahay shiiqay culimmada ugu yeerto ama bulshaday u taqaana shiiqa jacaylka inuu maanta qadka inoogu jiro ama aan waraysi la yeelanayno. farxad gooniya iyo waxay noo tahay karaamo gooniya. aad baan kugu mahad celinayna ustaadi. markii aan kasoo tago su-aasha labaad aan u socdo waxay tahay ustaadi, markii waxbarashada lagu jiro waxaa jirta dadka markay waxbarashada ku jiraan waxaa dhiba qofka ama kitaab hebel ama fiqi hebel wax unbaa meel ka dhiba. marka maxaa ku dhibi jiray ama aada jeclaa jirtay ama aad ku dhibi jira noloshaada? dhanka kale markaan dale ka eegto isla su-aal labaada la socoto oo kitaabkee jeceshahay markasta inuu gacantaada ku jiro ama akriskiisa aada badiso? soo dhawow. horta intaan weynaaday alxamdu lilah waxba badan ma dhibsan jirin. xagga kutubta iyo mashaa'ikhdeedana saaxiibaan wada ahayn. laakiin waagii aan yaraa ayaan doonayaa inaan su-aashan aada weydiisay inaan qiso dhacday aan kala wadaago. anugu waxaan necbaa arday aada u dadaal badan baan ahaan jiray oo fahmo badan. marka garaaca ayaan necbaa. marka macalinkaygii macalin weli raximahu llahu tabaaraka wa tacaala maalin baa waxaan u arkayey runtii ul aanan mudanin marka in la igu dhufto inuu igu dhuftay anigoo laga yaabaa hal xaraf inaan meel ha ahayd kaaf ka dhigay. bulaca soomaalidu qeyb kamida ay dhahdo baanu soo qabanay. bulaca ama mulaca waxaan ku tilmaamaynaa ama aanu ku qiyaasaynaa ama maskaxdanadu ay cabiraysaa inuu yahay macalinkii. waanu dilay, kadibna maradaydii baan qeyb ka gooyey, kadibna waan kafan baan oga dhignay. waanu yaryarnahay markaasi. kadibna janaazan ku tukanay, waxaan anagu ugu magacownay. kadibna waan soo duugnay. waxaanu nidhi marka macalinkii maadaama uuna dhibay maanta macalinka waan ka takhalusnay. ilaahay qudradii
galabkii markaan sida aan soo samaynay habeenkii waa la iska seexday. hadee ardada baadiyaha habeenkii 3 habeennimo baa lasoo kacaa oo dab la shidaa oo ardadu ay soo kacaan oo macalinku soo kacaan oo qur-aanka la diyaariyaa. kalcaada sidii baa dhacday. salaadii subax markaan anigu hadda saacad maanan haysanin, laakiin qiyaaska markaan isleehay salaadii subax 30 daqiiqo iyo wax ka yar baa ka hadhay, ayuu macalinkii anagoo dee meeshii gurigii iyo degaankii meeshii ka koreysay oo dabku noo shidan yahay oo qur-aankii markaa wada qoranay, ayuu macalinkii dhinaca dhulka dhigay. kadibna macalinkii ma kicin. salaadii subax baa la gaadhay, macalinkii ma toosin. waxaa la gaadhay waktigii ardadu ay qureecda doonanaysay, macalinkii ma toosin. guryihii markaanu ku wada noqonay oo de macalinkii awey la yidhi oo qureec iyo wax lamida laga wada hadlay, ayaa layi weli macalinkii qoraxdiibuu jiifaa. kadibna waa lasoo kala orday oo aabbahay baa kamid ahaa, allaha u naxariiste dadkii soo orday. guriga anagaa la dhigay. macalin weli taqriiban wax meyd u eg buu ahaa ilaa makhribkii kale laga gaadho. si kasta ayaa wixii dhakhtar la heli karay iyo wixii mudaawaad la heli karay oo dhan oo reer baadiyu isticmaalayeen markii laga quustay, ayaan aabbahay u imaaday. waxaan ku idhi aabba, runta ma kuu sheega ahaa, macalinka anigaa habaaray, usha igu taalana waad ujeedaa. kadibna aabbahay dee nin sheekha buu ahaa, markiiba ima canaananine wuxuu yidhi intuu soo qaaday taxaliil ama cashir, ayuu yidhi aabba ku tufo u ducee ilaahay inuu caafimaadiyo, anaa ballan kuu qaadaya inaan ul damba lagugu dhufanin. sidii baan maxaa la yidhaahdaa aan ugu duceeyey. ilaahay qudradii markiiba biyihii markii saa loogu saydhayba indhuhu kala qaaday oo wuu soo fadhiistay. horta qisadaasi waxay ahayd qiso iga soo martay, run ahaantii waxbarashada iga soo martay bay ahayd. amaa qeybta kale sidii baana ilaahay iiga badbaadiyey sheekha ushiisii iyo macalinka, oo mar dambeba ul layguma dhufanin. amaa kitaabka aan ugu jeclahay runtii, kitaabka magaciisa waxaa la yidhahdaa abujamra. xadiidkaasi kitaabka waxaa iska lahaa sheekh la yidhaha cabdullahi ibn abi jamra alasdi ayaa iska lahaa. waa kitaab 294 xadiid ah oo laga soo xulay saxiixeynka. kitaabka waxaan ku jeclaaday oon aada ugu jeclahay, subxaan allah, waa kitaabkii aan ku indha furay oo xadiid ah, xadiid nabiga sala allah alay slam carabkiisa soo maray. kitaabkii ugu horeeyey oo aan akristay buu ahaa. waxaana ku akristay magaalada xamar, xaafadda siigaale. sheekha ii akrina sheekh ibraahim suuley, kolba dadka dhegeysanhaya ee da-dayda ah aad bay u garanayaan. dalabaduna inta badan way maqleen, raximahullah. waqti dhexdeera ayuu hargeysa ku geeriyooday, allah u naxariiso subxaanahu wa tacaala. kitaabkaasi waa kitaabkii ugu horeeyey oon duubay 1995 aan maxaa la yidhahdaa ikeen aan ka duubay oo duuban ayuu noqday. marka kitaabkii ugu horeeyey ee aan jeclahay mar walba inaan daraaseeyo, aqriyo. sharxiisa kama hadlayo, kitaabka matnigiisa weeye waxa aan doonayo inaan aad iyo aad u cabiro. nacam.